iyadoo maalmo kooban ay inaga xigto waqtiga la bilaabayo koobka gobolada Somaliland oo ka furmi doona caasimadda Hargeysa 27 bisha tobnaad 2016 ayaa waxa si weyn looga dareemayaa gobolka Awdal magaalo madaxdiisa Boorama waxa diyaargalow xoogan ku jira xulka gobolka Awdal iyadoo ay u socoto tababarka diyaargalowga koobkan ayaa waxa uu ka socdaa garoomada kala duwan ee magaalada Boorama halkani waa garoonka kubadda cagta ee Moomin Dolaal oo ay ka socoto caalamiintada ama tababarka xulka haddaba munaasabada tababarkan oo ay soo agaasimeen tababarayaasha xulka iyo madaxda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Awdal oo dadaal weyn ugu jirta sidii ay sanadkan koobka gobolada Somaliland ugu guuleysan lahaayeen ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay kabtanka xulka gobolka Awdal Muxyidiin Ducaale oo ku magac dheer Muxyidiin Feregeele isagoo fariin u diray mas'uuliyiinta ganacsatada iyo bulshada qaybaha kala duwan اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه marka ruuxa salaamaya isku duwaha marka xigta wasaaradda marka xigta macallimiinta inta kadib waxaan rabaa inaan ka yarbixiyo hawshan soo wadnay bisha oo ah isku diyaarintii ciyaaraha gobolada oo bilaamaya 27 bisha Oktoobar taas waan rajeynaa insha Allah wanaagsan waxaan wadnaa traininka bishaas si fiican bay noogu socotaa si fiican baan u ciyaarnaa waqti fiican baan isku marnaa dhammaan ciyaartooydii sadarkiisa diyaar baan u nahay insha Allah waxaan rajeynaynaa guul fiican ka gaari doono waxa kale oo aan yar faa'iideysanaya xaggan qolada ganacsatada qurbo joogta dadkan u maqanta gobolka Awdal inay ka qayb qaataan dhinacooda maadaama aanu ciyaartooynoon xubinteedii ka soo baxnoon isku diyaarnay gobolkii waxaan doonay inay gobolkii kalena ayna garab istaagaan si ay aan iskula jaan qaadno insha Allah waxaan rajeynayaa iyaguna inay booska ka soo bixi doonaan inta kale waxaan uga baxayaa maamulka sidoo kale waxa hadalka iska daba qaatay tababaro ku xigeenka gobolka Awdal iyo gudoomiyaha xulka gobolka Awdal Awliyo alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah ilaahay ma taskale aniga marka waxaan salaamayaa suduwaha wasaaradda macallinka kabtanka inta hadda ka gudbo alxamdulillah ilaahay ma taskale waxaan traininka bilownay bisha hore 12keedii ilaa imikadana waan ku jirnaa waxaan inta oo soo dhax kala maahan waa diyaar garow aan u taabashaysanno ciyaarihii gobolada oo dib loo bilaabi doono hadii la bisha 30keeda waxaan rajaynayaa insha Allah guul baan ka rajaynaynaa waxaan wadnaa diyaar garow aad u fiican hadday noqon lahayd xagga wasaaradda hadday noqon lahayd xagga dhalinyarta hadday noqon lahayd xagga macallimiinta oo qof kasta waqtigii loogu talagalay ayuu soo xaadiraa u yimaadaa waa halka traininka waxaan uga gudbayaa insha Allah waxaan rajaynayaa hadii la haydo إلى الجلوب كان دون هكاس وحنا لكن باقي تريا كقبل هان إن معمول كقبلكم سفي عن أو هيلي هابا وقاقواته سلوا كرقب بجوكته سلوا كله شعبك خير أفضل أونلاين إن شاء الله سنة كان وحرجينا إن شاء الله إن البلكار كوب كأن سوق عدنا بركة واحد هرجينا إن هيلي هابا نقرب تايناتنا إن شاء الله وحن عبني بالينير هذا الترين بسوق عدني ما أنت نترين لغد بسمني وأنتكم ما سنتين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد سدعي ديش وكوش جت وبرك حلينكم إن مدة أبوه حيكسو جرين توابرك مدة بيل يكبرن وزارة النساء يقولوا جرتها مكان حلو باهن هاي جناح ستة برس رابك ما يركبك قرب الجوكتا أنا قميل بسوق جرسينا لكن قيبتي دقالها وحلو جبهاي عيد كستوب قبلك kasoo jeeda oo waxaysa inay dhalinyarada ku soo caawiyaan wixii ay u heli karaan talabaad waxa kale oo qorshaha loogu jiro marka ciyaaraha gobolada laga soo noqdo in horiyaal joogta aan qabanno oo sanadeeda taasina waa markaan ka soo noqono ciyaaraha waxaan aad ugu amaanayaa tababaro xigeenka iyo isku duwaha dhammaan hawshan wasaaradda dhinacyada ay ka joogto iyo ciyaartooyga oo soo hagar baxay qaabka tababarka ay u qaadanayaan ee waqtiga u ilaalinayaan waxaan u rajeynaynaa insha Allah inay guul ka keenaan guntiga gabagabadii waxa hadalka soo afmeeray isku duwaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska ee gobolka Awdal Samaroon Cabdilaahi Cilmi ayaan hadlay طبعا والسلام على ugu horeyn Raya TV iyo bahda saxaafadda kalihaan ugu horeyn salaamada gudoomiyaha kubadda cagta Awliyo oo wada garanaya ciyaartooy caan ah waxaan salaamayaa macallimiinta ciyaartooyaha jiray waaweyn oo khibrad lana ah wasaaradda
oo uu ka joogo Yoonis sameeyay hore waxaan halkan u joognaa wax kale ma aha waa dhiirigelinta dhalinyarada ciyaartooyga oo tababarka u socda inaan maanta soo booqano anagoo maamulkiya annagoo eegayna bal halkii wax u marayaan tababar ahaan iyo wixii loo diyaariyey agab ahaa ay u dhan yihiin in ay biyihii helayaan in sharaabkii helayaan runtii wax walba si fiican buu socdaa qaybtaa waxa sida ay ka dhawaajiyeen walaalahay dalkii gobolka u dhashay ama qurbaha joogaan ama gudaha joogaan inay dhalinyarada niyadda u dhisaan unbaa looga baahan yahay xataa haddii wax la waayo dhalinyaro ku istaagaysa waxbaad weydeen maaha insha allah waan dadaali doonaa annaga waxaan noo taalla inaan isdiyaarino gobollada la tartanno waana loo wada simeeyey gobollada qaadista koobabka runtii annagoo soo rajaynaynaa inaan markii ugu horreysay aan qaadno taariikhdan aan galno dadaalna waxba kala dadaalkuna si fiican buu socdaa waxaa kaloo jirta dhallinyaradana moralkooga iyo jidhkoogaba si fiican baa loo dhisayaa insha allah wax walba si fiican bay noogu socdaan intaa inaan soo booqanno bay maanta ahayd horta qorshaha ugu weyni sidaad arkaysana dhallinyarada si tartan waxay ku jiraan adag oo mas-uuliyad baa koraysa gobolkii dhan magaciisa ay wadaan insha allah waxaan rajaynaynaa waxa weeyaan inaan halkaa markaan tagnana sharaftii iyo akhlaaqdii iyo ciyaartoynimadii iyo nidaamkii lahayd inaan lahaano annagoo isku duuban aan tagno meeshaas insha allah rajo fiicanna waan leenahay marka waxaan u nimadnay kormeer ayaan ugu nimadnay basketkii baa noo dhiman isnaan kormeeri doono ciyaarihii fudaa orodadii oo qaybo ka mida la tababar loogu bilaabayo wiikan awal la tababaranay iyagana waan booqan doonaa saddexdaa fiil ama qaabo إن شاء الله رجعنا هنا كرمال كسمينا وحول برضو ديارنا ويبهين بنع والبمورال يجر إن شاء الله si kastaba ha ahaatee waxa bulshada gobolka Awdal ka warsugaysaa guusha ay u soo hooyin karaan gobolka Awdal koobkan oo ay u tartamayaan 8 goboladaas oo isha ku haya gobolka Awdal waa Cabdiraxmaan Jaamacaye telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV magaalada Boorama.